السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي ميل والبا جوجتان وإذن سلامي ما أنت موضوعين وحو كسابسن يحي السؤال اللي سويديي إن أصحابتك وحيران جنال كيغا دكتور سجيا أو maxaa keena dhiiga caadada oo muddo la waayo fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe like share waad ku maasantihiin daawashada muuqaalkan dhiiga caadada oo la waayo waqtiyo kala duwan waa xaalad caafimaad daro oo la soo darista qofka dumarka ah xaaladda ugu badan ee sababta waa xaalad marka ay hooyadu ku jidho xilliga uurka iyo xilliga nuujiska calaamadahan soo socda waxaa sababi kara laba xaaladood xaaladda hore waa xaaladda ugu horeysa dhiiga caadada la waayo waxaana sababi karta in aan xilligii qaangaadhka dib u soo dhacdo iyadoo ay jiraan xaalad caafimaad daro xaaladda dambe waxaa sababi kara khalkhal ku dhaca hormoonada jirka sida qanjirada xukuma soo saarista dheecaanada qaas ahaan qanjirada naasaha hoostooda ku yaalaan calaamadaha lagu garto xanuunkan dareere ka soo baxa ibta naaska timaha oo ka daata gabadha aragga oo khalkhal gala miskaha oo xanuuna finan badan oo ka soo yaaca jirka waxaa kaloo ka mid ah daawooyin sababi kara in dhiiga caadada la waayo waxaana ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo waalida daawooyinka dhiigkarka loo isticmaalo daawooyinka kansarka loo isticmaalo daawooyinka xasaasiyada loo isticmaalo nolosha gabadhu ay ku nooshahay oo xaaladahan la soo dirsaan miisaan gabadha oo hooseeya dumarka jimicsiga badan fikir badan iyo walwalka isbedelada ku imaada hormoonada jirka gabadha xaalado badan ayaa sababi kara in hormoonada jirka gabdhuhu inay isbedelaan tusaale ahaan haddii ay badato shaqada qanjirada thyroidka waxaa isbedeli kara dhammaan shaqada jirka waxa uu khalkhal ku imaan karaa xaaladda hormoonada gabdhaha taasina waxay xidhiidh la yeelan kartaa in dhiiga caadada la waayo haddii aad gabadh dhalinyar aad tahay oo cunto yari iyo nafaqo la'aan kaa hayso cuntada halis ayaad ugu jirtaa in xaaladan kula soo diristo jimicsiga aadka u badan waxa uu keeni karaa xaalad caafimaad daro cawaaqib xumada ka dhalan karta xanuunkan haddii la daaweyn waayo xilli hore xaaladan waxaa dhici karta xaaladahan soo socda taranka oo yaraada lafaha oo burbura deganaansho la'aan shaybaadhka iyo daaweynta waxaa qori kara ama go'aan ka gaadhi kara kaliya dhakhtarka ku takhasusay arrimaha dumarka dardaaran haddii aad isku aragto calaamadahan ee xanuunkan waa in si dhaqsi ah ula xiriirtaa dhakhtarka kugu dhow ha isku sii eegin xanuunkan waa xanuun aad u daran waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan